أحبائي في الله عرورتنا إننا وقت سينو أو أن لا عياره أو مالها عيارها أنو كينو ولي بهدانو نهي آبيال هو يوينكو ويدلالان عنتي أكريان مالا بدن بيجيان لكن عيارتو مركي معان تهي المهنا ومعان سنيو dareen gooni ana ay siinayso dhadhan gooni ana oo ka dhadhaminayo kuna faanayo oo caruurta la joogta oo ku faanayo ugu faanayo waa markuu aabuhu la joogo aabuhu ilmaha qiimo badan buu ugu fadhiyaa waxaan idin xusuusinayaa hadda ka hor muxaadarada taqriiban 2000 aan dhigay oo waxa jirtay la yiraahdo hooyo aabahay mee qisadaasi say u dhacdaan raba horta inaad xusuusiyo markoobaad si aan idin ku dareensiiyo aabuhu qiimaha uu ilmaha u leeyahay reer ayaan dhaxdooda galay kadibna waxaan kala hadlay hooyadii aabuhu inuu muhiim u yahay usrada iyo qoyska markay xoogaa qalbigeedu uu jilcay ayay qiso iiga sheekayso waxay tiri sheekho warkaagu inuu sax yahay shalay ilmahayga waxaan ka doonay xanaanada ayaan ka doonay meesha ilmaha lagu hayo galabkii markaan soo qaadaya qabowna way ahayd ayaa wuxuu arkay ilmahaygu wiil yar oo caraba aabihiiba wuxuu ka arkay oo baabuur meesha dhiganaya kadib ayuu orod isa sii daayay wiilkayga waxay tiri wuu qalalay oo wuu istaagay anigana asagii baan eegayaa jaakeetka hal gacan keli ah ayaa markaa aan u geliyay tii kale oo ma gelinin siduu wiilkii u fiirinayay wiilkii yarka hab ayuu siiyay aabihii waa uu dhunkaday wiilkii oo lugaha firiq ka siinaya oo aad u faraxsan aad u qurux badan ayaa mataqaanaa meeshii soo galay wiilkaygii yarka ahaa sidii wuxuu qalalay yacni sidii uu geed buu sidiisu u istaagay kadib markii uu soo galay intuu saa kor ii fiiray wuxuu yidhi hooyo horta aniga aabbahay awey walidaalika baa carruurta yaryarka ihi waxay in badan weydiiyaan hooyooyinka hooyo awe anaga aabbahay awey bal intayna hooyo dhihin bay aabba ku waashaan aabbuhu marka qiimaha weyn buu u leeyahay maxaad u malaynaysaa marka aabbaha maalinta sabtida iyo axadda uu shaqada ka joogo aabbaha waqti siiya carruurtiisa soo raaca carruurtiisa meelahan oo kale keena quruxda badan ciyaartan oo kale keena biyahan oo kale keena ee ciyaarsiiya ee la orotama ee kubadda la ciyaara ee la dhuumaalaysta ee hadda baalkan aan ku fadhiyo kale intuu kula fadhiisto maxaa la yiraahdaa iika sidaas kale ugu ciyaara wallahi ilmaha wuxuu dareemayaa farxad aad iyo aad u weyn was'al al mujarrib qofka arinta tajrubeeyay weydii ilmaha qiimaha arinta u leedahay iyo farxadda ay u leedahay waxaan ugu yeedhayaa nimanka Soomaaliyeed aabbayaalka Soomaaliyeed waad fiicantihiin waad wanaagsantihiin laakiin arrimaha naga maqan waxa kamida inaan carruurteena la ciyaaro oo aan banaanka la aadno oo aan badaha geyno oo aan ciyaaraha geyno oo carruurta la orotano la dhuumaalaysano aad iyo aad baan u rajaynayaa aabbaha sidaa yeela inuu natiijo fiican iyo midho fiican inuu ka guran doono uhibbukum fillah ilaahi daraadii baan idin jeclahay aad iyo aad baan idin salaamayaa aan carruurteena waqti siino lana ciyaaro meelaha ay ku ciyaaraanna aanu geyno wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh نور حياتك بالهدى واسلك